Sheekooyinka ku saabsan diiwaanada adduunka ayaa badanaa ku saabsan tartan daran iyo ammaan. Laakiin qofka haysta rikoodhkan cajiibka ah mar wuxuu si caan ah u sheegay inuu runtii rajaynayo in qofna weligiis ka guulaysan doonin. Ma ahan inuu isagu doonayo oo keliya, laakiin waxaan ka hadlaynaa Boone Lim, ninkii ka badbaaday in ka badan 4 bilood dusha sare ee badda dhexdeeda ee uu ku xayiranaa 133 maalmood oo adag oo toos ah. Wuxuu ka badbaaday musiibo walba oo ku dhici kartay qof ay nasiib darro ula gudoontay doontiisii uu saarnaa. Haraad, gaajo, duufaano, quus iyo xayawaan badeed dhiigyacba ayaa Boone Lim looga baahan yahay inuu wax ka qabto. Laakiin sidee bay waxaasoo dhammi ugu dhaceen isaga markii hore? Sanadku markuu ahaa 1942, sidaad qiyaasi karto badda waxaa ka buuxay burburka diyaaradaha maadaama dagaalkii labaad ee adduunka ku soo dhowaanayay heerkiisii ugu sarreeyay. Boqortooyada Ingiriiska dhaqan ahaan waxay ku xoog badnayd badda iyada oo halgamaysa. Tan ugu muhiimsan ayaa waxay ahayd yaraanta muuqata ee badmaaxayaal aqoon ahaan liita. Waxay caawimaad u dirsadeen dalka Shiinaha. Dhalinyaro badan oo Shiineys ayaa doonayay inay badmaaxayaal ka noqdaan maraakiibta Ingiriiska, oo Boone Lim ayaa ka mid ahaa. Waxaa loo xilsaaray markab ganacsi oo la yiraahdo SS Ben Lomond wakiil ahaan. Markabku wuxuu ahaa mid aan dheerayn karin isla markaana aan si fiican u hubaysnayn oo aad moodo baloonboolo fadhida. Bishii November 23 markii SS Ben Lomond oo isku dayay inuu ka gudbo badweynta Atlantikada, waxaa ku dhacay 2 gantaal oo ka yimid maraakiibta Jarmalka. Markabku si dhaqso leh ayuu u degay oo ay ka buuxsameen biyo. Dhammaan 55 xubnood oo ka mid ahaa shaqaalihii markabka ayaa ku hobtay gunta hoose ee badda. Markii uu aakhirkii kor uga soo baxay biyihii, wuxuu helay jaakada badbaadada. Shaqaalaha ayaa kala fadhiidsanaa oo jahawareersanaa. Boone Lim ayaa ka mid ahaa 11 shaqaale oo nasiib u yeeshay inay badbaadaan inkastoo aanu nasiibku sii badnayn. 10 kale ayaa si dhaqso leh loogu badbaadiyey maraakiib meesha maraysay. Rajada keliya ee Lim waxay ahayd nolosha gabal alwaax ah oo ka soo haray markabka SS Ben Lomond. Gabalka alwaaxa ah naftiisa si fiican ayuu u hagaagsanaa, laakiin sinaba uguma habboonayn in la dul saarnaado muddadan dheer. Balac ahaan wuxuu ahaa 8 ilaa 8 dhudhun. Wuxuu lahaa teendho yar oo uu roobka iyo cadceedda ka dugsado. Daasado buskud qalalani uu ugu jiro, 40 litir oo biyo ah, iyo baskoolada iftiinka oo la adeegsado xilliyada badbaadada ee ay gudcurka tahay ayuu jiscin ahaan u wataa. Marxaladda uu Boone Lim ku sugnaa ma ahayn wax farxad gelinaya, xataa ma uusan dabaalan karin oo waxa uu isku xirxiray alwaaxa si aanu uga dhicin. Waa sida adigoo ilmo yar ah oo ku dhex lumay suuq aad u weyn. Marka hore waxaad rajaynaysaa inay waalidiintaadu ku heli doonaan, balse haddii ay ku waayaan waxaad dareemaysaa murugo iyo welwel. Arrintu kama duwana sida Boone Lim haysato oo kale. Maadaama sahaydiisii biyaha ay engegeen, Boone Lim wuxuu ogaaday inuu ku jiro khatar dhab ah. Nasiib wanaag ma uusan baqin, wuxuuna si dhaqso ah u hindisay xirfado badbaado oo adag oo markii dambe ka caawiyey qoritaanka buugaag ku saabsan xirfadaha badbaadada badda. Weli cabsi baa ku jirta, walow uu xirxiray guntiino xarig ah si uu u tiriyo maalmihiisa. Waxyar kadib wuu joojiyey tirinta maalmaha wuxuuna bilaabay xisaabinta bilooyin buuxa. Wuxuu isticmaalay bacda teendhada si ay biyo macaan ugu dhacaan. Kadib wuxuu garwaaqsaday in buskudkii sii dhammaanayo, wuxuuna bilaabay inuu sameeyo qalab cusub oo uu ku kalluumaysto. Wuxuu kala furay toosh koronto ah oo silig dheer ka soo saaray. Sidoo kale wuxuu laabay musbaar isagoo adeegsanaya ilkihiisa. Isla markiiba wuxuu helay cunto iyo biyo macaan labadaba. Wuu ogaa sida ay u adkaanayso in la cuno kalluun cayriin ah maalin kasta, taas oo noqon karta khatar. Laakiin maxaad samayn lahayd haddii aanad haysan wax kale oo aan ahayn kalluun cayriin? Wuxuu go'aansaday inuu bal ugu yaraan qoraxda ku qalajiyo si uusan u qurmin una nadiifiyo. Laakiin xitaa intaa kadib dhibaatooyinkii Boone Lim haystay weli ma aysan dhammaan. Weli wuxuu ku xayirnaa badda. Wuxuu arkay maraakiib meesha marayay marar badan, laakiin ma aysan dareemin. Mar uu xitaa arkay doonyihii Jarmalka oo la mid ah tii u horseeday dhibkan. Sida la xasuusto, shaqaalihii markabka way arkeen laakiin waxba uma qaban. Kulan kale ayaa xoogaa ka farxad badnaa markii diyaarad meesha maraysay ay aragtay Boone Lim. Waxay ku soo tuureen calaamad si ay u calaamadeeyaan goobta oo ay uga dhigaan mid cirka ka muuqata. Laakiin dabcan duufaan ayaa timid. Duufaanadu waxay dhibaato ku noqdeen ma aha oo keliya alwaaxa uu saarnaa, laakiin tan ugu muhiimsan ayaa ahayd sahayda. Hal habeen oo duufaano wata ayaa dhammaan sahaydii kala tegay. Dhalooyinkii ay biyaha ugu jireen oo dhan iyo kalluunkii la qalijiyey, wax kasta. Duufaanadii kadib, Lim aad ayuu u daalay una haraaday ilaa uu awoodi waayey inuu cuno raadsado. Waxaase uga sii darnaa maalmihii xigay, qoraxdu aad ayay u kululayd, wax daruur roobaad ahna ma jirin.
Boonlim wuu iska quusan lahaa haddaanay ahaan lahayn shimbir ku soo degtay alwaaxiisa. Wuxuu isu geeyey dhammaan xooggiisii u haray, wuxuuna ku booday shimbirtii nasiibka darneed si dhaqso badan ilaa uu helay maalintaas qadadii. Shimbirahaasi waxay u ahaayeen badbaado ilaa uu dib u helay tamar ku filan oo uu kalluumaysigiisii ku sii wato. Laakiin markiiba dhibaato kale ayaa timid. Waxay u muuqatay inaan wax kalluun ahi jirin haba yaraatee. Liam wuxuu ogaaday in makaalintii uu ugu talagalay inuu ku kalluumaysto uu ku soo dhacay libaax badeed gaajaysan, kalluunkiina uu naftiisa la cararay. Boonlim wuxuu adeegsaday awooddiisii ugu dambaysay si uu libaax badeedka bannaanka uga soo saaro. Intaas kadib waxaa bilowday legdantii ugu dambaysay ee u dhaxaysay bani'aadam gaajaysan iyo libaax badeed. Liam dhowr jeer ayaa la dhaawacay, laakiin markii dambe wuu ku guulaystay. Maalin maalmaha ka mid ah, Boonlim wuxuu ogaaday in biyaha ku xeeranay ay midabada beddeleen. Wuuna farxay maxaa yeelay taasi waxay ka dhigan tahay oo keliya hal shay, oo ah in dhul u dhow yahay. Dhulku wuxuu ahaa Brazil. 3 nin oo kalluumaysato ah ayaa ugu dambeyn ku badbaadiyey deked halkaas ku taalay 5tii bisha Abriil 1943. Kadib 2 toddobaad oo uu ku jiray isbitaalka, wuxuu diyaar u ahaa inuu dib ugu laabto Ingiriiska, halkaas oo lagu guddoonsiiyey biladda boqortooyada Ingiriiska iyo saacad daab ah oo ay ka heleen shaqaalihiisa astaan magdhow ahaan. Ma badna, laakiin wax la'aan way dhaantaa.